مشكورا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ولا لها ماشي اسوي من رجل يدوم أربع. السلام عليكم ورحمة الله. وموضوع runtii aan u arko in loo baahan yahay in laga hadlo, bal nabigu uu dardaarmay calayhi salaatu wassalaam: akthiruu dikra haadimi lladaat. war xasuusta macaaniyaalka oo dhan midka dumiya hadi jeeraale, xasuustiisa badiya iyo sheegitaankiisa midka macaanka oo dhan dumiya, midka adduunyada dadka ka quusinaya, midka qofkaan maalkiisii dareensiinaya. kaab xusidiisa badiya. sidaa darteeda ayaan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in laga hadlo mawduuca. waxaan ku bedelay mawduucii luqada see loo ilaaliyaa, qurbaha see loogu noolaado. waxaan ugu bedelay adduunyada oo nagu sii faafi oon aakhira iloobayno daa'iman. nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu asagu nagula dardaarmayay waxa annagu aynu ku dhaqmaynahay inay aad iyo aad u kala fog yihiin. marka haddii qofka uu aakhira xasuusta daa'iman, adduunyadu way la yaraataa. hadduu aakhira iloobana adduunyadu way la weynaataa. saasuu nabigu marka noo yidhi: iktiruu dikra haadimi lladaat. war badiya sheegitaanka iyo xuska ku badiya midka macaanka oo dhan dumiya. haddii ay gaarto ajalkii wakhtigeedii uu gaaro ilaahay uu qadaray subxaanahu wa tacaala, oo qofku uu dhammaysto cumrigiisa wakhtigii loogu talagalay, mid kastoo annaga naga midi inuu dhimanaya ha ku talagalo. mid kastoo annaga naga midihii naftiisa bal iminka ha ku rido naxashka. mid kastoo annaga naga midihii ha fiiriya asagoo iminka kafantiisii ku jira. mid kastoo annaga naga midihii ha fiiriya isagoo godka loo laalaadinayo. mid kastoo annaga naga midihii ha fiiriyo iyadoo ciidda lagu rogayo. mid kastoo annaga naga midihii ha fiiriyo meesha looga soo tegayo. godkoonan lahayn iftiin ilaa ilaahay inuu u yeelo moogiyo, oon dabayl lahayn inuu ilaahay u yeela moogiyo, oo ciriiri ah ilaahay inuu waasiciyo moogiyo. qof walbow bal adigu naftaada taa iminka u qadim oo bal meeshaa isdhigin yar. haddii marka uu gaara buu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam, ajalkiisii qofku haddii uu gaaro loo qadaray oo uu dhammaysto cumrigiisii, waxaa u timaada markaasi malaa'igtii rabbi baa u timaada caza wajal, ayaga oo markaa ka raraya qofkaasi daartii dhammaanaysay oo daartii baaqiga ahaanaysa u rarayaan.
waxay u soo fariistaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ishu meeshay wax ka aragto malaa'igtaas malakul mawd iyo acwaantiisa halkaasay u soo fariisan kolkaasuu malakul mawd soo dhowaan malagii loo soo wakiishay wuu u soo dhowaanayaa ilaa uu madaxa ka soo fadhiisto markaas naftiibuu u yeeri kolkaa marka naftaas loo yeerayaa laba midkood weeye inay naf rabbi adeecda ahayd oo awal aakhara xasuusnayd iyo mawt iyo mid diidday inay ahayd waxaan sidaa u leenahay qofka bani aadamkaahi mahmaa uu noolaado waa kii maalin lagu qaada naxashka waa kii mawtka dhadhamiya saasuna ilaahay u leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmawt wainamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اdunya ila mataacu lguruur waxaad mooddaa marka inaanan oggolayn in lala xasuusiyo dhimashada oo aan adduunyada jecelnahay marka naftaas loo yeerayaa laba unbay midkood noqon qof kastoo annaga naga midana waa kii mawdka u soo socda wey waxaad mooddaa marka laga hadlaya aakhiro dadku inay aakhiro soo dhaafeen baad mooddaa mararka qaarkood oo waxa laga hadlayaba ay soo gudbeen laakiin xaqiiqdu waa inaanay soo gudbin wey haddii ruuxdu marka ay tahay ruux wanaagsan oo ilaahay rumaysay oo camal saalixa ku dhaqaaqday oo amarkii ilaahay ku dirantay oo rasuulkii ajiibtay oo jidhkii aanan xaaraan cuninin ilaahayna uu ateecay subxaanahu wa tacaala waxay ku odhanaysaa malaggaas wuxuu ku odhan ukhrijii ayatuha annafsu almutma'inna aayaddii qur-aan fii suurati alfajr yaa ayatuha annafsu almutma'inna irjicii ilaa rabbiki radiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii kolka sidaasuu ilaahay ku odhanaya subxaanahu wa tacaala malagga wuxuu odhanayaa ukhrujii soo bax ayatuha annafsu alطayiba kaanat fi ljasadi اطayib naftii wanaagsanayd ee jidhka wanaagsanayd ku jirtay jidhkii aan xaaraanta cuninin ukhrujii xamiidatan wabshirii birawxin warayxaanin warabbin hayri qadbaan soo bax adigoo mahadsan ku bishaarayso rawxun warayxaan farawxun warayxaanu wajannatu naciim buu yidhi ilahay fii suurati alwaaqica farawxun warayxaanu wajannatu naciim u soo bax ilaahay raalli ahaanshihiisa u soo bax ilaahay ridihiisa u soo bax ilaahay jannadiisa u soo bax ilaahay cidrigiisa u soo bax baa la odhan naftii طayibka aheed ee wanaagsanayd ee ilaahay ajiibtay subxaanahu wa tacaala ee qur'aanka ilaahay ku joogsatay xadkiisa ee rasuulka amarkiisa raacday wuxuu ka reebana ka hartay markaasay u soo bixi naftii fatakhruju min badanihi kamaa takhruju alqaطraةu min fi الsaqaa way soo baxaysaa naftii sidii dhibic biyaahee ka soo dhacday weel la foorariye ka soo dhacday bay ka soo dhici wالnaashiطaati nashطa fii suurati الnaazicaat sidii dhiftin la furay bay u soo bixi waa jamcu unshuuطa wالnaashiطaati nashطa biarwaaxi اlmuslimiin naftii mu'minadda ahayd ee ilaahay raalli gelisay sidii dhiftin la furayo u ilaahay jasadka uga soo siibaya subxaanahu wa tacaala cadaad ku noqon mayso ku dhegi maysa jirkii marka sida biyuhu uga soo dhibcaan weelka afkiisay uga soo dhibcaysa hadduu marka soo qaado malaggii oo naftii uu ka soo siiba jasadkii rusushii u fadhiday ishu meeshay ka aragta wax ilbiriqsi u dhaafi maayaan gacantiisii ayagoo haysta udug iyo kafan ayagoo haysta iyo dhaqitaan jannada ay ka soo qaadeen iyagoo sita
ayagoo kafan sitaya xanuut min aljanna ayay u soo baxayaan taasoo ka udug badan ka adyabi nafxati miskin wujidat calaa wajhi اlardi buu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii oo wariyey imaam axmed fii sunanih wa abu daawuud fii sunanih ثuma yuscadu biha lilcardi اlأwal calى asraci اlxaasibiin maxaan la kulmi doonaa ilaahay baa oga subxaanahu wa tacaala nafteenna maxaa loo gelbin doonaa ilaaha og subxaanahu wa tacaala way la cararayaanoo markiiba ilaahay baa loo bandhigayaa qofkaan aad u jeedaan naftu ka baxayso naftiisa kor baa lala aadayaa malaa'igtaa waa qaadayaan oo cirkay ula fuulayaan samaday la aadayaan markii lala aado fayantahi bihi ila asamaa'i اdunyaa fayustaadanu lahaa samadii koray ula fuulayaanoo iidan bay ilaahay u weydiin in samada loo furo waa loo furayaa markaa abwaabu الsamaa waxaana ku tukanaya oo u ducaynaya markaasi malaa'igtii samadaa ku sugnayd sama walba waa buuxdaa oo malaa'ig bay ka buuxdaa kolkay ku tukadaanay sii sagoontinayaan haddana mar kaleetoo samadii ku xigtay u sagoontinayaan malaa'igtaasi sidaasaa lagu samaynayaa ilaa ay samada rabbi ku sugan yahay ay tagto naftii fatuxayii rabbahaa subxaanahu wa tacaala bitaxiyati rububiya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay bay salaamaysaa salaamtii rabbinimo iyo ilaahay ku salaamaysaa naftii mu'minadda ahi maxay odhanaysaa allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta nafteenu ma odhan doontaa sidaa mase way khilaafi doontaa ma naqaan ma loo furi doonaa mise waa laga celi doonaa ma naqaan ilaahay baa og ina loo furi doono ina la ka celi doono ayuha alikhwa ilaahay bay ku salaami salaamtiisii xaqa ahayd allahuma anta asalaam wa minka asalaam wtabaarakta ya da aljalaali wاlikraam waa ducadaas aanu ilaahay ku ducaysanno oo ilaahay aynu ku salaamno bacda asalaa bacda kulli salaatin annagoo rajaynayna inuu ilaahay salaadeenna samada u furo camalkeenna ilaahay samada ku aqbalo subxaanahu wa tacaala allahuma anta asalaam wa minka asalaam ilaahu adigaa salaam ah magaciisa rabbi bay ka mid tahay wa minka asalaam nabadgelyadu xaggaaga ka ahaatay tabaarakta ya da aljalaal ilaahu wax walba waa ka hufnaato waa ka tahirnaatay adigaa cadamo u saaxiibaya karab fain shaaa allahu adina lahaa bisujuud haddii ilaahay uu doono sujuud buu ilaahay u idnayaa naftaas waxaa u soo baxaya markaa jannada kaarkeedii baa u soo baxaya oo la odhanayaa ku qora jannada ku qora daftarkeeda ku qora an nasiib badanaa ilaahay ninkuu jannada ku qoray ilaahow jannada nagu qorabigayo ilaahow fii ciliyiin nagu qorabigayo is'alu allaha alfirdows alaclaa buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam qofku
qofku inuu ilaahay jannada weydiisto weeye daa'ima inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay magaciisa ku qorin jaxiimka yaa allah yaa raba aljalaali waalikraam ilaahay markaa wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin ku qora addoonkayga kitaabkiisa cilliyiin ku qora wamaa adraaka maa cilliyuun kitaabun marquumun yashhaduhu almuqarabuun kitaabka malaa'igta soo xaadiraan wey uma aciiduuhu ila alard ardada dhulka ku celiya mar haddaad magaciisa ku qorteen jannada ku qorteen isagoo raalli ah ku celiya ardadii u celiya markaa ruuxdiisii fainii minhaa khalaqtuhum wa fiiha uciiduhum wa minhaa ukhrijuhum taaratan ukhraa ardadii u celiya ayadan ka abuuray ayadan ku celinayaa mar kale ayadan ka soo saari doonaa mar kale minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badanaa isweydiiyo qofkaan marka la dhaqayo sidoo lagu tasarufaya naftiisii xaggay joogtaa hadduu mu'min yahay markaasaa la soo celin ruuxuhu ila alard xaggay tegaysaa kolkaa fatashhadu gaslahu wa takfiinahu wa xamlahu wa tajhiizah naftiisii way ag joogtaa markaa la dhaqayo oo la kafanayo oo la xambaarayo oo la diyaarinayo naftiisii waa ag taagan tahay naftii way ag taagan tahay laakiin uma jeedno annagu uma jeedno kolka waxay soo xaadiraysaa joogtaa intaa la dhaqayo intaa la kafanayo intaa la diyaarinayo intaa la sii sido kolkaasay ka hadlaysa ay leedahay qadimuuni idadejiyo gurigaygii idadejiya maxaa yeele meesha aadaysa way og tahay inay ka raaxaysatay tacabkii way og tahay faidaa wadica fii laxdih qofkii qabrigiisiyaan soo qaadno kulligana waanu wadnaa dad badanoo naga midahay qubuuraha korkoodii baa lagu qoslayaa oo lagu qaylinayaa oo sigaarka lagu cabbayaa oo dabka in loo qaadeen nabigu mamnuucay calayhi salaatu wassalaam adduunya looga sheekaynayaahoo waa la qoslayaahoo maanta qabriyaalkii kabaha lagula dul taagan yahay oo sigaarkaa lagu dhex cabbayaahoo waxaasoo dhan baa la samaynayaa qosol bay qaarka dad uga caddahay faidaa wadica fii laxdihi watawallaa canhu asxaabo dadkiina ay duugaanoo ciiddiisii ay ku rogaan dakhalat iruuxu macah ruuxdii godkay la gelaysaa xataa inahu layasmacu qarca nicaalihim buu yidhi nabiga calayhi asalaatu wassalaam isagoo maqlaya dadka kabqaadkoodii isagoo weli maqlaya cala alard yay naftii la gelaysaa qabrigii markii horeba waa la socoto waatii sidaa lahayd marka ayaa imaanaya xaalkima halkaasuu ku dhammaaday maya faataahu markaa waxaa u yimid fataanaa alqabri buu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam labadii qabriga ku fidnaynayey laba malag oo hororaya oo aad iyo aad ugu qallafsan baa imaanaya marka riwaayaddii kaleeto abu daawuud xadiidkii albaraa ibnu caazib waxay odhanayaan yaa rasuula allahi saxaabadii qof ay labadaa malagoo horodaya ay u yimaadeen oon gafaynin miyaa jira waxay weydiinayaan nabigu wuxuu aqriyay yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqawli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alظaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa buu aqriyay nabiga xadiidkaas markuu nabiga uu sidaa odhanaya nin ansaarta ka mid oo dhintay albaraa ibnu caazib oo warinayo oo nabigu inta la soo qaaday godkii oon weli luxdigii loo samayn ay keeneen oo wuxuu yidhi kulligood aan wada foorarno sii taho shimbir madaxa naga saaran yihiin oo nabigu laan au haysto sidaa dhulka ku leeyaho kor madaxa u qaaday oo yidhi ilaahay ka hoosgala xadiidkii maanta ma arkaysaa muslim iyo ay wariyeen ilaahay ka hoosgala cadaabta qabriga ilaahay ka hoosgala cadaabta qabriga ilaahay ka hoosgala oo yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam addoonka waa la fitneeya qabrigiisa hoostiisa waa lagu fidneeya fataana alqabr way soo fariisin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam waxaanay weydiin sidaan rabbigaagu waa kee
diintaadu waa tee nebigaagu waa kee qofkaan rabbi baranin oo aan diinta aqoonin oon rasuulka aqoonin buu odhan doonaa sida soo socota qofkii yaqaanana oo tilmaamaha ilaahay yaqaano sifaadka rabbi yaqaana oo nabiga raacay oo diinta ku dhaqmay oon khilaafininna ilaahay baa sugi doona fayaquulu rabbiy allah wa diin alislaam wanabiyi muxamed ninkii gaalada raaca diintiisu islaamka noqon maysa ha ogaado ninkii gaalada raaca oo gaalada macaansada diintaydu waa islaam odhan ma doonay ha ogaado nebigaygu waa nebi muxamedna ma odhan doonay ha ogaado markii la yidhaahdo maada taquulu can hada arajul samictu nnaasa yaquuluun buu odhanayaa buu odhan doonaa laakiin ruuxii rabbi yaqaana oo cadamadiisa yaqaana oo tilmaamihiisa yaqaana oo ilaahay caabuda oo ilaahay ka baqa ilaahay wuu waafajin allahu rabbii yuu odhan wamuxammadu nabiyi walislaamu diini sidaasuu ku jawaabi doonaa fayusadiqaani wayubashiraanihi biana hada aladii caasha calayhi wamaata calayhi wayubcaثu calayhi way u rumaynay waxaan run baad sheegtay sidaasaad ku noolaatay sidaasaad ku dhimatay saasaana lagugu soo bixin bay odhanaya kolkaa walaalayaal maxaa ku xigi doona marka su'aalaha uma yufsaxu lahu fii qabrihi madda basarihi ishiisu meeshay wax ka aragtaa qabrigii loo waasicin ciriiriga ahay oo xufrada yar ahaa ilaahay baa kala jeedi ilaahay baa ardada amray subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ardadii u amray inuu ilaahay ka fogeeyo subxaanahu wa tacaala ciiddii aan ku habbinay iyo godkii aynu gelinnay iyo ciriirigii ou ahaa ilaahay baa ardadii u waasicay markii su'aalaha ay dhammaystaan malakaankaas waxaa loo gogli doonaa cagaar yaa loo gogli doonaa waxaa u imaan doona marka qof walbow qabiilkii godka kulama gelin qaraabadiina godka kulama gelin daarihii iyo guryihiina godka kulama gelin waxaa kula soo gelaya camalkaagii fayuqayadu lahu shaabun xasanu lwajhi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo keeni oo sowahal ugu imaan doona mid dhallinyaro ah oo wejigiisu aad iyo aad u qurux badan yahay baa u imaan طيب الرائحة buu yidhi nabigu udug aad u fara badan leh yaa u imaan fayaquulu abshir biاladii yasuruk ku bishaarayso midka ku farax geliya wuxuu odhan doonaa kumaa tahay adigu kolkaa qofkii maydkahay meesha ku jiray fawajhuka alwajhu aladii biاlkhayr yajii'u biاlkhayr wejigaa waa wejigii khayrka la imaan jiroo sharkaama muuqatee kumaa tahay fayaquulu ana camaluka asaalix camalkii iminka halkan lagu samaynayo laga tegey halkaasuu asagoo muuqda ugu imaan qofka marka ugu horraysa xalaashuu cuni jiray iyo xaaraantuu ka fogaaday maalinkaasuu kala fahmi ma dheeree hadda ogow saaxiibbadaa weli waa nool yihiin qaraabadaadii weli waa nooshahay daaraha dhiste weli dhulkay ku yaaliin aa laga yaabaa kabahaagii iyo dharkaagii weli dadaasitaa laga yaabaa waa kaasi ogow ma dheeree ogow haddaad u haysato wax taariikhuho fog haddaad u haysato ma dheeree ogow taas waa maanta ma arkaysaa naftoo laga qabtaa qofka waa ilbiriqsi weeyaan dharkiisii iyo suudkiisii iyo maanta dahabkeedii gabadhii iyo wiilkii ninkii asagoo dharkiisii yaallo ayay dhacaysaa arrintaani ogow meel dheer maaha kolkaasuu le ana camaluka asaalix qofkii salaada ka tegey salaaddii camal saalixa noqon mayso qofkii soomka ka tegayna soomkii camal saalixa noqon maayo qofkii aan dhowrsanin ee zinadii qurunka ku dhacana markaa ma noqon doono sidaasi qofkaan xalaasha cuninina ma noqon doono sidaasi ana camaluka asaalix qofkii ilaahay ajiibay rasuulkiisa ajiibay diintii ku dhowrsaday iyadii ku camal falay oo ku adkaaday qofkaasuu sidaa u noqon maxaa dhici doona kolkaa
qofkaa wejiga qurxoon baa u soo galoo sidaa ku yidhi rag iyo dumarba ilaahu camalka noo qurxi rabbiyo 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 ilaahu camalka noo qurxiyo riyaaga naga fogeen rabbiyo يا الله يا رحمن يا رحيم ثم يفتح له طاقة إلى النار طاقة بالله فري درشت بالله فري أو النار تحقيرة يقال مركة وحلق أرندونا انظر ما صرف الله عنك في روح إلهي كاللحي سبحانه وتعالى وموقفك ماشو كلها النار تأوقالك أساقا كدح لدونوين فيري ماشى إلهي كان لحي أرق بالعرن ثم يفتح له طاقة إلى الجنة داقت كلا الله غفر دون جنة حقيقة وحالقوا أرن دون انظر ما أعد الله لك في روح إلهي كو دياري يدنا فيراهما مركا وأكيا لمدينة محانو قلت لقلني سؤاشا قفك مؤمن كها مركا وكاسا مآل كيسي maalkiisi waa kaasaa inta dadkii ilmihiisii iyo dadkiisii iyo qaraabadiisii saaxiibadiisii ardada ku nool yihiin xukunkaas markaasuu qaadanaya meel dheer maaha xukunkii ogow naftii ka baxday xukunkii la soo siiyey waayo wuxuu godka kala kulmayaa ogow ma diyaarina walaalayaal waa su'aal na hortaa la weeyey waanu gacan marana haddaad fiiriso soo markaysid saasay dadka ahlul cilmiga ee keeneen xataa galeen meelaha khatarka ahee u leexdeen inay wax walba iska sii daayaan salaada badiyaan oo soomka badiyaan oo cibaadada badiyaan oo qiyaamul leelka badiyaan waxa ay raadinayaan waxa way inta kaliya inay gaaraan inay ka cararaan ay yiraahdaan hay dagan adduunyaha idaa hay kadinina iga jooji ay soo joogsadaan taasa keenaysa haddii laakiin ruuxu aw adduunyada siday tahay u raaco khalaas weeyaan tagi kaas naftaas waa tii fiicnay tii faajirada haday maxay la kulmi waa midaan ka baqaynay inaan xaggeeda aadnay naftii faajirada ahayd marka waxay la kulmi doontaa inta aan soo sheegnay cagsigeeda la kulmi doontaa ka soo horjeedkeeda la kulmaysa haddii uu dhawaado marka in naftii laga qaado qofkii faajirka ahaa waxa u soo dega malaa'ig wajiyaal madow ba u soo dega buu nabiga kaleey salaatu wasalaam wajiyaal madow malaa'ig wajiyaal madow yaa u soo dega buu yiri ilaahay oo wataan kafan iyo qurun naarta laga soo gooyay wata yaani qariban iyo kafan qariban oo naarta laga soo diyaariyay iyaguna wataan kuwaas wajiyaalka madow ayagana waxay u fariisanayaan sidii oo kale meesha ishu ay wax ku aragtay u fariisanayaan waxa u soo dhawaanaya malagii marka nafta loo soo diro leey soo qaat waa u soo yeeri marka naftii faajirada ahayd naftii markay aragto malagan iyo sida uu yahay way caradiyo jirkii gadaal ugu cararaysaa kolkaa naftii jirkii gadaal ugu carari kolkaasii ku dhagi sidii cadaadkii oo kale ama suufkii cadaadka lagu shabiyay oo kale yay ku dhagi doontaa kolkaasay oran soo bax naf yahay xun soo bax bay oran oo malagii oran soo bax naf yahay xun oo jasadka xun oo liita ku jirtay soo bax oo baktiga cuni jiray ku bishaarayso jahannama iyo kulayl ku bishaarayso soo bax iyo wa aakharu min shaklihi azwaaj iyo bal cadaabyo kale oo noociisa oo kala duwan ku bishaaraysa soo bax bay oranaysaa kolkaas ay ku kala fidi ay ku kala carari fi badanihi fatataayaru fi badanihi bu nabiga kaleey salaatu wasalaam fayajtadhibuha min a'maaq albadan kolkaas xidid walba ka soo jiidaya malagaasi ayagoo garaacaya
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بغير الحق أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وعلى القراء في سورة الأنعام أيها سورة غيركم باسطوا أيديهم بسطك وحي المفسرين هو الضرب وياه أيها حق هورية حق دم كقراء إليهم بحية نفتينا صوب بحية وعداد عمل يكون دجنتها والنازعات غرقا إلهي يقول سبحانه وتعالى مركي سيبيان أي كقر قومان أي كم ما شودان أي كل دجينهين يقدر كل شغلونهين بيع نفط هذا إليهن اللي تاجيين قراعيا فتنقطع معها كل كاس يقول أي سابو يري العروق والعصب حديد يردن ينرفس يردن سوق أي يحيد مه يردن يسوقون كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول سيدا قدحت اللوغة سوسيبه صوف كقوين لوغة سودح سيبه أوكالا أما السفوتك لوغة صوصارة أوكالا تو صوف كقوين markay naftii ka soo dharaandiriyaan oo ka soo xoogaan oo dibaan oo nafta lagu dhibayo oo la garaacayo oo balaayada ay haysato oo qayladu ka yeerayso marka ugama tagayaan gacantii malagi ka soo siibay naftii jirka ka soo siibay ilbiriqsi asagana uga tagi maayaan ayadoo oo naftii marka ay leedahay ur la uriyo wax ardada korkeeda ku baqtiya waxa ugu ur badan ay tahay markaas iyadana waxay ku soo dhaweynayaan qurun iyo kafan laga soo qaaday jahannama ayay markaasi ay ku duubayaan wayal'anuha kullu malakin bayna as-samaa'i wal ard waxa lacnad ku ridaya malak kasta oo bayna as-samaa'i wal ard ku sugan ya lacnad ku ridaya waxa markaasi lala aadaa samadii sare waxa malaa'iktii u dalbaan in loo furo samada fala tuftahu lahum laha abwaabu as-samaa irida marka loo furi maayo waa laga diidaa loo furi maayo baa la yiraahdaa thumma yaji'u an-nidaa'u min rabbil 'aalamiin dhawaaq baa ilaahay xaqiisa ka yimaada subhanahu wa ta'ala uktubu kitaabahu fi sijjiin كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وما أدراك ما سجين كتاب وما أدراك ما سجين ويل يوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين في سورة المطففين بنورا kitaabkaas marka asagana loo raqameeyay oo malaa'iktu soo xaadirin khayr kale ayaa asagana magaciisa lagu qori kolkii sidaas ay ku dhacdo marka maxaa dhici uktubu kitaabahu fi sijjin bu ilaahi oranaya waa'iduhu fil ard thumma tutrahu ruuhuhu tarhan halkaas laga soo kala bajin wala soo tuura ayada dhan fatashhadu marka tajhiizahu وتكفينه وحمله مركز سوا حاضرتا أسجنا كفنتي سئيو ديارنتي سي قادديسة وتقول على السرير سرير تقول كذا مركز كقيلنا أرنسا يا ويلاه أين تذهبون بها حقيد لآذيسان هلا جدي باب إيدي حقيد لآذيسان maxaa yeelay way ogtaa marka waa la soo diiday way ogtaa jahannama ma meel kale inaysan aadaynin way ogtaa inaan khayr ka horeynin qayladaas ay qaylinayso maanta ma arkaysaa oo ay maqlayaan illa taqalayn ayay ku qaylinay oranaysaa yaa waylaa ayna tadhabuuna ila ayna tadhabuuna biha fa idha wada'a fi lahdi hadii la dhigo marka luxudkii la dhigo أعيدت إليه وجاءه الملكان نفتي ولا سوء لأنه جسد كذا لقصوا علين الأبد الملك بانا أومان فسأله عن ربه ودينه والنبي
nebigiisii iyo diintiisii rabbigiisay wax ka weydiin markaasuu talactum samaynayaa oo gagabayaa oo wuxuu ku jawaabo aanu garanaynin oo ku jawaabi ma garanayo wixii la weydiiyo waxba ma fahamtidee ha fahmin waxna ha garan bay odhanayaan kolkaa markaasay ku dhifanayaan dhufasho ay qayladhaan ku dhifto aad u xoog badan qayladhaan aad u xoog badan oo ku dhifto iyo qaylin doonaa oo ay maqlayaan shay kasta ilaa jinniga insiga moogay ay maqlayaan kolkaasaa qabrigii lagu ciriiriyey ilaa ay isdhaafaan labadiisa feerood ay isdhaafaan yaa allah yaa raxmaanu yaa raxiim ilaahu ha nagu darin rabbi subxaanahu wa tacaala xataa takhtalifa fiihi adlaacuhu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo feerihiisii korena dhulka hoose ay u mudaan feerihii hoosena dhulka kore ay u mudaan waxaa loo gogli naar buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa darishad looga furayaa jannada waxaa la odhan doonaa fiiri waxuu ilaahay kaa leexiyey subxaanahu wa tacaala haddana waxaa loo furi doonaa darishad baa looga furi doonaa naarta waxaa la odhan doonaa fiiri waxa uu maanta maqcadkaaga min annaar halkaa ka fiiri meeshaad naarta ku leedahay halkaa ka eg fa yaraahumaa la jamiican labadiiba wuu arkay inaan soo dhaafna ha u qaadanina maanan soo dhaafin waxaa liibaanay qofka ilaahay uu nabadgelye ku dhaafsiiyo ilaahay nabadgelyaha nagu dhaafsiiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay nabadgelyaha nagu dhaafsiiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay nabadgelyaha nagu dhaafsiiyo subxaanahu wa tacaala فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قفكاس بالليباني ليبان هذا المرشوى قفك إلهي أو دافسيو مرحلة دا إلهي دافسيو مدير أو واتن وين وجدنا رنتي مدير لكن أن نقول لما سعنا واحد ماشى كدعية إنه بنتون قادم عيد كسور نبان وجدنا سوما nabigu wuxuu noo sheegayaa waxa dhici doona ciidaana ku soo rogayna ka dambe waxa dhici doona laakiin waynu ka indhalanahay nabi waxa naga saaran xaajib yaa indhaha naga ka saaran dhigaha iyaguna ma maqlaan wax meesha ka dhacay markii sidaas ay dhacdo ayaa la oranayaa markaasi loo keen mid indhala markii hore waxa loo keenay shaab waji wanaagsan laakiin mid indhala baa hadda loo keeni oo dhegala oon hadlaynin acmaa wa asama wa akbar abkam yaa loo keenaya mid akhrasoon hadli karin oon wax maqlaynin oon wax arkaynin baa loo soo taagi halkaan fayaquulu markaa wuxuu odhan man anta fawajhuka aladii yajii'u bishar ilaahay baa sidaa ku yidhi wuxuu hadduu qofku indhala yahay ou dhegala yahay ou afka ka hadlaynin khalqiga ilaahay abuur asaga ugu shar badan buu yidhi ilahay qur'aankiisa ina shara addawaabbi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun walow calima allahu fiihim khayran laasmacahum walow asmacahum latawallaw wahum mucriduun fii suurati alanfaal ilahay sidaasuu ku leeyay subxana wa tacaala ina shara addawaabbi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun marka acmaa wa abkama wa asama buu ilaahay u keeni markaasuu odhanayaa ilaa isagaa khalqiga ugu shar badane man anta fawajhuka aladii yajii'u bishar kumaa taha wejigaagu midkii sharta la imaan jiroon khayrka lagu arkinin baa tahay ana camaluka sayi iyuu odhanaya kolkaas camalkaagii shartood shaqaysatay adugu waa kii baan ahay buu leeyahy ogoobay camalkan adigu uu qofkaani ku dhex jiro asagoo meel u yaalahay ogow inamaa acmaalukum uxsiihaa iyaakum aw uxsiihaa calaykum waa acmaashiniyo waan idiin koobayaa buu yidhi laakiin ilaahay wuxuu leeyahay adinkaa la imaanaysaan qof walbana camalkiisa yaan ku abaalmarinaya ilaa qofka mu'minkaa ilahay ka cafiye moogiye qofka mu'minka ahi markaas xayaatadaas barzakha la yidhaahdo waa uu ku raaxaysanayaa xasaba acmaalihi
salaadii qofkii ilaaliyey oo soomkii ilaaliyey oo cifadiisii ilaaliyey oo ishiisii ilaaliyey oo dhegtiisii ilaaliyey oo calooshiisii ilaaliyey oo gacantiisii ilaaliyey oo farjigiisii ilaaliyey ilaahay wuxuu ku siinayaa nicmou ku siinaya oo gartay inuu dhimanayo meesha hoosteeda gelaya oo inuu rabbi la kulmi doono garanaya ilahay nicmada halkaas buu ku siin subxaanahu wa tacaala addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir buu xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay nabigu calayhi salaatu wasalaam sijnu lmu'min adduunyadu waa xabsiga qofka mu'minkaa weeye adduunyadaanan ka daba geyfanoon ka daba ordaynoon fagagagax ka daba leenahoon u dayacnay wax walboo dhan nabigu wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir maxaa yeelay xabsiga qofka mu'minkaa waxay u tahay meel kastoo markuu aakhare xaggeed usii dhaqaaqaa loo qataa u khayr badan hadduu ilaahay uu tawfiiqda waafajiye noloshan ardada korkeeda laakiin gaalka oo iyada kasii dhaqaaqo cadaab iyo shar buu usii gelaya marka jannatana unbaa yaa u abaalayay xuuralciintiisii waa haweenka qaawan uu ka daba ordayay zinadii waxa uu ku dhacayo weeye jannadiinsiina waa intaan aad u jeedo weeye qofka raba marka inuu gaalka ku meel noqdo gaalka ku daba xiro qofka raba inuu ilaahay tegin meeshiisa hadeerka carar intaad nooshahay ka carar waa sidaa weeye intaad nooshahay ka carar saasuna nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu tirmidi oo maanta ma arkaysaa warinaya ou leeyahay maalii walidunya ma ana fi dunya ila karaakibin qaal fii dilli shajaratin uma raaxa watarakaha war aniga adduunye maxaa naga dhaxaysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam anigu adduunyada ma ihi buu yidhi ilaa ruux musaafira moogiy oo geed hooska yimid oo xoogaa yar seexday uma qaal maalii walidunya ma ana fi dunya ila karaakibin qaal ay naama qayluula fii dilli shajaratin uma raaxa watarakaha buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka maxaa aniga iyo adduunyana daba dhigay buu yidhi waxaana qof musaafir oo geed hooska intuu yimid xoogaa yar seexdo ka carraabo oo ka tegay baan ahay maxaa i daba dhiga aniga صحيح adduunyadii waan noolno in yaraan noolna laakiin inaanan ka dhiginin nolosh yani meelaan degno broosin ka dhigan inaanan ka dhiganin marka haddaad dhigato xataa lagaa yeeli maayo way kuma socotid amarkaa kuma socotid adiga isdiyaari war isdiyaari qof walba isdiyaari oo iska daa waxaanad ka daba ordaydo nebi maxamed bal noloshiisii fiirshi iyo adduunya meeshuu ka taagnaa eega marka ugu horraysa kolka qofkii ruuxii mu'minka ahaa waxa weeye caqligu wuxuu keenayaa meesha aanan xukumin oon usii socdo aniga waxay ka taraya aan sameeyo inuu yidhahdo qofka muslimka marka nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxa mu'minka ahi barzakha wuxuu ku nicmaystaa calaa xasabi acmaalihi yucadabu alfaajiru fiihi calaa xasabi acmaalihi aydan qofka faajirkaana maanta waxaa la cadaabayaa xasaba camalihi iyo acmaashihi la cadaabi waxaa kaleetoo musiibaha runtii taalla xadiidkaas dabcan oo riwaayaat fara badan lahoo nasaa'i oo wariyo abu daawuud oo wariyo axmed oo wariyo kulligoodna albara ibnu caazib ay ka soo qaateen bimukhtalafi riwaayaatihi waxau tusinayaa isla madmuunka xadiidka uu keenayo mid walbaaba oo imaam axmed soo warinay ayuu keenaya madmuunkiisa oo sunankiisa uu kusoo warinayo maanta ma arkaysaa musnadkiisa ximin walba marka oo qofka bani aadamkaa ka mid ah waa la cadaabaya ilaahayna wuxuu ku khaas yeelayaa cadaab u laa'iqa camalka ee ku dhaqaaqday iyuu ilaahay ku cadaabaya subxaanahu wa tacaala qofkii faruuyihiisii dadka xaman jiray waa la googoyn oo waxaa lagu googoyn doonaa oo dadka hilibkooda ku cuni jiray yani maqasyaal laga soo qaaday naartaa lagu jari doonaa bimaqaariid min annaar buu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa maanta ma arkaysaa la buuxin doonaa dadkii cuni jiray amwaasha agoonta maalka agoonka dadkii cuni jiray calooshooda naar baa laga buuxin doonaa aayaddii qur'aanu aqrinay fii suurati الnisaa iyuu ilaahay ka buuxinaya subxaanahu wa tacaala inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiran buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay hadalka uu leeyahay waa xaq sida qoraxdaas u caddahay buu qof walba ugu cadiya qofka maalka agoonta cuna ilaahay ballan wuxuu ku qaaday inuu calooshiisa naar ka buuxiyo maxaa yeelay isagaa u weliyey saasuu ilaahay ku yidhi maanta ma arkaysa ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu اlyatiim walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin qofkaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay qofka maalka agoonta bannaystay ee cunaya
qof jahannamo banaysay oo yawmul qiyaama beeniyay inuu yahay buu ilaahay ku xukumay subxaanahu wa tacaala dadkaas marka ilaahay wuxuu ballan ku qaaday in la buuxsho uurkooda laga buuxiyo jahannam dadkii cuni jiray ribada waxaa afka looga buuxin doonaa sidii digaag afka loogu gurayo oo kale dhagax naarahu ilaahay afka ugu guri doonaa maalinta qiyaama iyagoo afka kala haaya markay dhaqaaqi tagaanna calooshooda oo ka weyni badan wax walba ay hadba la dhacayaan jibriil ay ku dhufanaysaa iyadu waxay ku dabaalan doonaan dadka ribada cuna oo maanta ku dhaqma oo aan joojin ilaahay markuu kitaabkiisa ku soo dejiyey oo suurat albaqara uu ku soo dejiyey kadib ku sii dhaqmaa ilaahay wuxuu ku dabaalsiin doonaa kuwaasi anhaar oo dhiig ahuu ku dabaalsiin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siday ugu dabaalan jireen kasabka xaaraanta ugu dabaalan jireen oo ribada u cuni jireen dukaanka ku qaada ribo guriga ku qaada ribo tijaarada ku qaada ribo baabuurka ribo ku qaado farnijarka alaabta ribo ku qaado waxaanba ku qaado kaarkaanba ku qaado credit kaarka ku isticmaal sida dadku u dhaqmayaan u dhaqan waxaan kuu sheegayaa inaad adiguna ku gubanayso qofyo inaad ku gubanayso ogow maxaa yeelay qofkii wixii ilaahay xarimay qofkii kuu xalaaleeya beenu kuu sheegay ee xaq kuuma sheeginin dadkii maanta salaada ka hurteen dhagax baa madaxa lagala dhici doonaa oo lagu baabi'in doonaa mar kastaba dhagax weyn oo dadaabaa lasoo qaadana madaxa looga fariisin say salaada uga seexdeen madaxuu ilaahay ka bashaaqi doonaa dhagaxa dadaabkaha la soo qaadan qof walba madaxa looga bashaaqaya markuu madaxu isku baabaa sidiisii lagu soo celin hadba waa lagu bashaaqaya marka uu raysto la isku soo celiyo kiya la soo qaadan waa lagu dhifanaya hada jeer saasuu ku jiriya cadaabkaasuu ku jiri doona qofkii salaada ka hurda sidaasaa maanta loola dhici doona siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saasuu ku socon doona sidaba ilaahay cadaabka markuu ku rido jahannama oo hilibka oo bislaado oo hilibku ka baaba'o oo dhuxuloobo hilib cusub hadba loogu soo saari xagga alla laga soo saarayo markuu gubtoo madoobaado hilib cusub loo soo saarayo si uu cadaabka hadba u dhadhamiyo kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii beenta sheegi jiray labada daan baa la dilaacin doonaa oo qadaadkaa lagu dhejin doonaa indhihiina qadaadkaa lagu dhejin doonaa ayadoo maanta la surayo biraha sida hilibka la suro oo kaleeta aha qadaadka saas loogu dilaacin doonaa marka sankiyaa la dilaacin doonaa qadaadkaa loo dilaacin doonaa ishaa la dilaacin doonaa qadaadkaa loo dilaacin doonaa sidii oo markii horeba beentiisu ay ugu faaftay adduunkii dadka ugu dhex faaftay oo kale siduu beentuu qofku sheegayaa dadka ay ugu dhex faaftay oo kale dad baa banaysteen oo maanta ka dhigteen inay tahay wadiifo oo kale waa dicaaya oo kaleeto iyo waa siyaasa iyo waa politics iyo qofkaan hebela maanta kaarkiisaan gubayaa iyo maanta ma arkaysa waxaan ka gubayaa maanta sumcadiisaan gubayaa iyo xaggaan ka dhacayaa iyo waraana isagu dhihinin loo soo alifa iyo camalaana ku dhaqaaqin loo soo alifa iyo ma 24 saac lagu shaqeeyo maxaa ku xigi doonahin arma on daftarkaas aad gacanta ku hayda adigu aad qorahay camalkaaga mayd soo malaa'igtu qori mayd soo sala soo hordhigi maayo iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiban ma xigi doonto nacam maanta ma arkaysaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qof walba kitaabkiisaa laga daba keeni beentuu faafinayo shala lahaa waa dicaayad oo uu ka faafinayay hebelka sheeg oo dadka ka gubo kaarkiisa gubo kaarkeeda gubo oo cambaareey oo saatan ka dhigow lahaa maxaa ku xigi doona haddaba camalkiisa xasanaadka loo soo qaadiyo laga siin hadduu wax xasanaad waayana sayi'aadkiisa laga qaariyo dhakada laga saariyo naartu haddana geli buu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu xun maanta inuu qofku ka dhigto wadiifa oo maanta ma arkaysa ka dhigto sidaasi oo yidhaahdo maanta arrintaas anaa hirgelinayo oo kaleeto waa iclaamkii oo beentaasan ka shaqaynayo caynkaas oo kaleeto anaa hirgelinayo oo kala ha ogaado siduu beentiisu u faafinayo dadka ugu dhex faafinayo inuu ilaahay sidaa ugu abaalgudi doono subxaanahu wa tacaala beenaalihii sidaasaa lagula dhaqmi ribada kii cuni jirana xaaraanta iyo suxdiga kii cuni jirana sidaasaa lagula dhaqmi agoonta kii cuni jira maalkooda sidaasaa lagula dhaqmi kuwii salaada ka tegi jiray sidaasaa lagula dhaqmi haweenkii oo zinada ku dhaqmi jiray naasaha biraha kalaalibta loo gelin oo markaasi lagu calliqi doonaa jahannamo dhexdeeda waxaa maanta lagu xabisi doonaa nimankii zaaniyiinta ahaa iyo haweenkii zaaniyaadka ahaa tanuurka sida muufaha lagu dubo oo kaleeto oo aad u kulul baa lagu dhex ridi doonaa marna ka soo boodi doona markadaa lagu noqon doonaa
ليلة الإسراء والمعراج بان النبي قال تسي عليه الصلاة والسلام waxaa kaloo laga sii cadaabi doonaa maxalul macsiya yaa laga cadaabi doonaa farjigaa laga cadaabi doonaa cadaab bay maanta kala kulmi doonaa nabigu wuxuu huwa al-asaafil meelaha hooseeya aad looga cadaabi doonaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sallidi doonaa oo ilaahay uu ku sallidi doonaa farax bay iyagu ka raadinayaan markay zinada ku dhacayaan oo sida ay samaynayaan wuxuu ku rid doonaa hammi iyo ghammi iyo xuzni iyo aalaam nafsaaniya oona ka soo noqonin oo aad u xanuujido ilaahay adduunyadana ku sallidi doona qofka zaaniga ah aakharana ilaahay humuumtaas uu beerka u gelin doona zaanigu marna kama baxaa la yidhahdaa shiddo kama baxa baa la yidhahdaa zaaniyaddu shiddo kama baxda baa la yidhahdaa murug kama baxda baa la yidhahdaa maxaa yeelay waa inay diinta necbaystaan daa'iman maxaa yeelay diintu way ka celinaysaa mar hadduu wadiifo ka dhigtana waa inuu diinta necbaystaa marka kama baxa baa la yidhaahdaa waayo mashquul buu ku yahay arrintaa ayadaa siduu cibaadadii rabbi uga mashquulay oo xaaraanta u bannaystay yuu ilaahay hammi iyo ghammi iyo xusni iyo alam nafsaani uu ilaahay beerka u geliyaa siduu markii horeba naftiisa uga mashquulay oo salaadii uga mashquulay inuu ciyaaro oo maanta turub ciyaariya iyo qaad u fariisaya iyo balaayo kala wadaya iyo khamro ka aadiya iyo suuqa wareegaya iyo musalsal fiirsaya iyo TV hor fadhiisaya iyo donad fariisaya sheekada ku dhameeyaaba soo cibaadada ilaahay iskaga mashquuliyay buu ilaahay ugu mashquulin doonaa balaayo kale aalaamtaas marka naftooda ayay aad iyo aad u dhibi doontaa ilaahay wuxuu ku sallidi doonaa subxaanahu wa tacaala xayawaanaad balaayuu ku sallidi doonaa abeesooyin iyo tixiriyaal buu ilaahay ku sallidi doonaa jirkooda ku sallidi doonaa qabriga dhexdiisa iyadoo adduunyada ay ku sugan yihiin dhibkaasu aakharana ilaahay taa ku soo abaalmarin doona sidaasay ku jiri doonaan ayadoo ay cuni doonaan wax alla waxaas tixiriyaal iyo balaayo iyo xayawaanaad ay cuni doonaan qabriga ugu jiraan ku cadaaban yihiin yow ilaahay intaa ku joojin maya cadaabkoode xayaatadii barzakhaa dhammaan doonta intay la egtahana ma naqaan nolosha marka qofku intuu nool yahay maxduud oo waa la qiyaasi karaa runtii qofkii cirkaas u goodaa 100 sano qofkii dhaafaa la yidhahda waa cumriye laakiin 100 sano iyo 10 sano uu fadhin doono qofku meesha marka nolosha wax yar ma markaas haddii noloshu ay tahay wax yar oo maxduuda oo sanado faraha lagu tiriyay ay tahay taasuna aanay xisaab lahayn soo adduunyadii nolosheedii wax dhow yar ma marka xayaatu dunya in la yiraahdo way istaayisha marka ama hal lidanan ha ka timaado ama dhawaanshaha ka timaade ilaahay marka wuxuu soo daadin doonaa roob cad oo sida shahwadu ay u caddahay u cad buu soo daadin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adag kamani rijaal 40 maalmood bay dii doontaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ka soo bixi doonaan dadku qubuurtoodii sida ay geedka iyo cawsku uga soo dhashaan dhulka oo kaleeto yay uga soo bixi doonaan qubuurtii oo kaleeto markii ay maanta soo buuxsanto oo waqtigeedii la gaaro waqtul wilaada ay joogaan yow ilaahay wuxuu amri doonaa israafiil inuu afuufo markaas kolkaasuu nafqadii hore soo afuufi doonaa markan 3 nafqo ayaa isku daba xigi doonta nafqatu alfaza iyo nafqatu as-sa'iq way dhiman doonaan iyo nafqatu al-ba'th yaa isku xigi doona marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asraafiil buu amri doonaa inuu afuufo markaa nafqatu al-ba'thigi oo tii ugu dambaydo saddexaad ah markaasay soo bixi doonaan dadkii faidaa hum qiyaamun yanduruun faidaa hum bisaahira ardada korkeeda iyagoo taagan bay arki doonaan mu'minkii markaa ilaahay buu uga shukrin subxaanahu wa tacaala isagoo ilaahay caabudaya ayuu soo baxayo xamdiyayuu soo bixi alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur isagoo leh oo yaqiinsan shalay markuu adduunyada joogay yaqiinsanaa inuu dhimanayo inuu qubuuraha muddo fadhin doono mu'min uu yaho ilaahay u waasiciyey jannada uu daaqada ka arkaya sugaya inuu gali doono oo maanta amarkii u soo baxay isagoo garanayo soo baxayo sidaa leh alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur isagoo lahu soo baxaya mu'minkii wa ama alkaafir yaa waylanaa man bacatanaa min marqadina haadaa maa wacada alraxmaanu wasadaqa almursaluun isagoo sidaa odhanayo soo baxaya gaalkiina
yaa waylana man bacatana min marqadina halaaga iyaga yaa naga soo saaray meeshii aynu ku jirnay dabcan marqaday u tahay markii loo fiiriyo cadaabkii uu ku jiray qabriga dhexdiisa waxa uu naarta la kulmay markii loo eego marqad bay u tahay meeluu hurday camal bay u tahay laakiin hurda ma jirin xagga hurda ma jirin laakiin markii loo eego waxa sugaya ayay hurdo camal u noqotay sidaba jannadu ay ugu tahay janno markii loo eego qubuuraha waxa ku sugaya saasuu la imaan markaasaa la soo kaxayn khalqigoo dhan yaa allah xufaatan curaatan ayaga oo wada qaawan oo cagacad bay soo bixi gurlan oo wada buuriya qab ahay soo bixi buu yidhi naf kastana oo kaxaynayo saa'iqun yasuuquhaa wa shahiidun yashhadu calayha mid kaxaynaya ayada oo mid walbaba oo kaxaynayo malagii oo kaxaynayo daftarkeeda haayay maanta ku markhaati lahaa iyada dadkiina iskugu jiraan mid faraxsan sida mu'minkii iyo mid maanta ma arkaysaa hubuur iyo halaag iyo balaayo la qaylinaya mid qosliyi mid ooyaya ayagoo iskugu dhex jira wa xaqan wujuuhun yawmaidin musfira daaxikatun mustabshira ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وإن أقرينا لكن دقوا ما دقنا وإن حفظنا لكن دقوا ما دقنا وحين لا توكلت وحين صوت عفني وحين صوت عفني وكلا ين لا تحي لكن سيدا سيكو إيمانا يعني حقيقة والله سيدا إلهي إليه يكو إيمانا سرنتي marka wajiyaalna iyagoo faraxsan bay imaan oo naadira ah ay imaanaysaa ilaa rabbiha naadira wujuuhun yawmaidin baasira tadunnu an yufcala biha faaqira saasay ku imaanaysaa waa in la ogaado xaqiiqdu ay sidaa tahay la kala dheeree lugana maaha soo ma arkaysid la kala dheeree cagana maaha waa camal weeye waa maanta ma arkaysaa waa qaraar weeye waa go'aan weeye saasaa lagu kala imaan hadday marka kaamil noqoto oo dhammaantood dadkii ay wajhul ardi yimaadaan oo maanta samadii ay kala dildillaacdo oo xidigihii ay fanfaniinaan ida samaau nshaqat maanta ma arkaysaa ida samaau intatarat ida samaau intatarat ida samaau nshaqat waida alkawaakibu intatarat waida albixaaru fujirat إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هذا سيدا تمادو أو عالم كي سيدا أصوب بعدمان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي سيدا اسكوكو تمادو محادع دون كلكا ملائكتي سمد أي سودكتو oo dadkii dhammaa ay soo koobto markaas xero ay geliyaan dhammaan oo ay soo kaxeeyaan kolkaa oo mid walbaaba maanta dadkii khalqigii rabbilcaalamiin ay u soo kaxeeyaan rabbina uu yimaado subxaanahu wa tacaala lifasli maanta markaysaa khusuumaad lifasli alcaalamiin ou ilaahay u yimaado wajaa'a rabbuka waalmalaku saffan saffa wajii'a yawmaidin bijahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وإيمان والله كتاب كمال اسكدقنا يقول لقنا بساسي وإيماني سأقادا ساسي وإيمان waxaanu ka daba ordayna maanta tiya guri baan dhisi iyo daar baan dhoobi iyo xaggan ka dhacaya iyo saanan samayn waa la iskaga soo ka mari saasaan nin walba nafta iyadaa ka daba geyfan adduunyada oo ka daba ordaysa laakiin xaqiiq badan oo ihmaalinaysa ayaa jirta haddaad ku noolaanayso waa inaad ugu noolaataa sidii taa ka tegaysid iimaanka miyaadna u jeedin nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan adduunya laga dhaxlin inaanu daara ka dhooban miyaadnaan u jeedinin miyaadnan u jeedin cumar miyaadnan u jeedin abubakar sidau yahay dadkii jannada xaggeeda u badinaya sidaa xoolahoodii ku halaagay iyaguna xoolahoodii ku bixiyeen
inay jannada ku gaaraan annaguna xoolaan ka daba ordayna diintii u tuurayna soo ma waa sidaa weeye fahamka annagu intaasuu leegi samadii ma lahan qorax waashraqat alardu binuuri rabbiha ilaahay nuurkiisay ardadii ku iftiimi markaa mujrimiintii iyo mu'miniintii waa in la kala sooca marka saylaan la isku dhex fadhiya iminka la isuma dhex fadhi doona ogaada miisaankiina waa in la soo taagaa waalwasnu yawmaidin alxaq faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون إلهي سسري والوزن يومئذ الحق يا لساري عمل كينا ويا كان قبرك كوب إيمان يوي كان لساري حقها حسناتي سيئاتي باللسارية كل كاسا لو يريدونا shuhuuddii oo dhan dadkii markhaatiyaalkii o dhan waa loo yeeriye malaa'igtii yaa markhaati kici doona intii khalqiga kale iyo malaa'ig iyo bashar kale lasoo dhaafo jirkaagaa ku markhaati kici qof walbo jirkaa ku markhaati kici indhihiibaa markhaati kici oo gacmihiiya markhaati kici oo dhegihiiya markhaati kici oo wallaahi meel kale loo dhaqaaqi maayo ogow يعني xumaanta aan samaynayno od isleedahay ka dhuuma dadka kale gacmahaadaan ka dhuuma karin gacmaha laga dhuuma karin iyo dhegaha iyo indhahan laga dhuuma karinin yawma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun maanta kama dhuuma karno juluuddeenna iyo qulubteenna kama dhuuma karno ilaahay afkaan carabkan ka hadliyo cadka hilibkaa ka hadlisay gacanta wuu ka hadlin lugtana wuu ka hadlin xaggeen ka gelaynaa iyaga xaggeen ka gelaynaa aamus markii la yidhaahdo lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kulla shay xaggeenu ka gelaynaa taa waanu ilowno kaligana inaanu wada jirnaad moodaa kaligay baan leenahay maya naftii jirku shuqul iskuma laha jirku beri wuxuu odhan doonaa nafta cadaabka naftana waxay odhan doontaa jirku isaga macsida ku dhacay cadaab kolkaasaa loo soo diri doonaa xakam malag ah waad ku wada dhaqaaqdeen waa la isla cadaabi kolkaa markaasay khusuumadu socon doontaa ruuxda iyo jasadku wuu odhan doonaa innamaa kuntu mayitan laa acqilu walaa asmacu walaa ubsir waxaan ahaa maanta ma arkaysaa mid dhinsanan ahaa caqli ma lahayn dhega ma lahayn indha ma lahayn maanta adiga ayaa wax kala arkayey naftii adigaa ahayd alsamiicatu albasiiratu alcaaqila wa kuntu tatasarrufiinii aw tasarrufiinii adigaa igu tasarrufaysay meel la meeshaa doonto ruuxii wuxuu odhan doonaa wa anta aladii facalta wabaasharta almacsiyata wabadashta adiga ayaa jasad yahu macsidaan ku dhaqaaqay adiga ayaa maanta adigu mubaasharadii lahaa toos adaa ugu dhaqaaqay ilahay wuxuu usoo diri doonaa malag xakam buu usoo diri doonaa kolka wuxuu odhan doonaa malaggaasi wuxuu soo keeni doonaa mid maanta indhala oo meel fadhiya iyo mid maanta ma arkaysaa mid indha qaba oo meel fadhiya oon isaagi karinin iyo mid indhala oo saxiixa qof indhaha leh oo aan kici karin oo meel fadhiya iyo qof kici kara laakiin aan indha lahayn kolkaasuu markuu sidaa yidhi wuxuu soo galeen beer bay soo galeen oo u keenay kii fadhiyey wuxuu yidhi anugu waxaan u jeedaa midhahaan u jeedaa geedka ku yaalla laakiin ma gaaro anugu midhaha geedka ku yaalla waa u jeedaa ilaa indhihiiaan qabaa waase fadhiyaa ma kici karo adigu waa kici kartaa laakiin indhihii meligi marka sidee baan ku soo gurannaa wuxuu yidhi anaa ku qaadaya adaan indhaha le anigu aan ku qaadee soo gur geedka marka saasaan ahayno saas labadaa qof ka warran kee baa dembiga leh kii waa qaaday kii indhaha la'aa iyo xoogga lahaa
kii indhaha wuxuu jeeday buu qaaday kor markuu u qaadana midhaha u soo guray markaa kiine baa la ciqaabaahu yidhi kolkaa labadaba waa in la ciqaabaahu yidhi labadan marka saasaa tihiinoo labadiinuba marka yani jasadka iyo ruuxdii qofkii indhaha lahaa ee meesha fadhiyey iyo qofkii xoogga lahaa oo indhaha lahayn ee iskaalmaystay geedka midhaha ka soo gurto isgaarsiyaad isla mid tihiin buu labadiinuba marka labadiinuba ciqaabka saasaad u leedihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka addoomihiisii uu kala xukmin maalinkaa qofkii faajirkaa naftii faajirada ahayd iyo naftii baariyada ahayd ma mid walba waa la siin faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara saasay ku imaan doontaa waxaa la naadin doonaa kolkaa ha raaco qof walbaaba ummad walbaaba waxay caabudeen war waxaa loo idinkaga celinayo dadka loogu celinayo la leeyahay war iska daaya xatrada war iska daaya dadka aad baryaysaan bani aadamka aad baryaysaan hadhow aakhare idinoo badbaadi karaan waxa culimmadu tawxiidka ay uga hadlayaan waxa culimmadu ay leeyihiin ilaahay keliya barya war maalinkaana imaan doonta waxa dhici doona bal dhegaysta dadyo war sheekh hebel berri mana badbaadi karaya masana ma badbaadi karo maanta falsafaadka gaaladu mana badbaadi karaan masana ma badbaadi karaan aynu kala eegno waxaa la odhan doona loo naadin doonaa ummad walba ha raacdo waxay caabudaysay ha raacdo markaas khalqigii waa la kala xukumi soo ma dadkii caabudi jiray awtaantii dhagaxda caabudi jiray awtaantii bay raaci doonaan dadkii saliibka surtana saliibkoodii raaci doonaan kiristankii bay raaci doonaan nasaaradii halkaasay ka bixi doonaan saliibkii bay raaci doonaan war istilaafkan weynuu wata gaalku dad baa ku daba faylay doonoo ogaada ciyaal yaryaroon waxba kala ogayna laga yaabaa inay silsilad surtaan surka laga yaabaa oo ay u surtaan xarago iyo mujtamaca inaad ka mid tahay istusi oo kalayto war waa caqiida iska jira rag iyo dumar baa iska jira kayskaa mushrik kastaana wuxuu caabudi doonaa oo raaci doonaa maca ilaahihi ayuu raaci doonaa alladii kaana yacbud awood uma leh maalinkaa inuu khilaafo ka daba marow yidhaahdo may maanta i anfici maayo waa ka harayaa awood uma leh maxaa yeelay adduunyadu raacay uu sidaa sameeyey markaasi kula dhici doonaan naarta kula dhici doonaan dhammaantood markau raacaan naartay ku shubi doonaan dhammaantood dadkii muwaxidiinta ahayoo ilaahay keliya caabuday yaa soo hari doona oo ilaahay ku soo hari doona xataa waxaa la qofka ilaahay yaqaanaa mararka qaarkood maca fisqihi xataa waa soo haraya dadkaasu kusoo jira marka waxaa lagu yidhaahdaa miyaadan idinku baxaynin waa kii dadkii tageene oo meesha dadku aadeen miyaadan aadayna lagu yidhi dadkii muwaxidiinta ahaa saasaa lagu yidhaahdaa marka waxay yidhaahdaan dadka waanu ka leexanay annagoo ugu baahi badan maanta waxaan annagoo ugu baahi badana dadka khilaafna shalay dadka annagoo u baahan inaan raacno shalay oo inaan xoola ku daba raacno oo dhaqan ku daba raacno oo maanta ma arkaysaa nolosha ku raacno annagoo u baahan yaanu shalay khilaafno ka leexanay hadda ninkii maanta nolosha gaalka siday tahay u raaca oo siday tahay ugula dhaqmaa ma khilaafid berri ma dhihi karo waa khilaafa ogow ninkii ribada kula dhaqmaa waa raaci doonaa ha ogaado ninkii zinada kula dhaqmaana waa raaci doonaa ha ogaado kan khamrada lacaba waa raaci doonaa ha ogaado kan maanta ma arkaysaa salaadii diinta iyaga darta uga tegay waa raaci doonaa ha ogaado kan kaniisada la gala waa raaci doonaa ha ogaado kan diimuhu waa mide hala raac saasaa imaan doonta waxay leeyihiin la soo istaagi doonaan faaraqna annaasa axwaja maa kunna ilayhim annagoo dadka aad ugu baahi badan yaanu shala khilaafnay oo aanu gees uga leexanay bay leeyihiin muslimku waa ka duwan yahay ummadahoo dhan ha la ogaado waa muslimku waa ka duwan yahay ha la ogaado inta kaleeto magacyo sheegtaa oo dhan dhammaantu isku dhinacay marayaan muslimkuna dhinac buu mari doonaa yahuudiga iyo nasraaniga iyo buudistaha iyo hindooska iyo siikha iyo wax allaala waxa kaleeto muctaqadka kala watoo dhan dhinac bay mari doonaan dhammaantood muslimkuna dhinac buu mari doonaa sida uu maanta u yahay bar madow oo dibi cad ku dul taalla soo maanta muslimku u yahay buu gees u bixi doonaa ha la ogaado waa inuu maalintaa mahadiyaa qofka muslimka ah iimaankiisa waa inuu mahadiyaa waa inuu ogaadaa inuu ka duwan yahu yidhaahdo saad u dhaqantaan uma dhaqmo saad u caabudaan uma caabudo saad u cuntaan uma cuno dhaqankiina iyo diintiina iyo noloshiina dhan waan ka duwana muslim haddaan ahay
saasuu odhan doona waina lanaa rabban nantadiruhu rabbi baan leenahay aan suganaynay bay yidhahdaan rabbi baan sugaynaa haydhan annagu rabbi aan leenahay yaan sugaynaa bay yidhahdaan waxaa loogu jawaabaa wahal baynakum wa baynahu calaamatun tacrifuunahu biha calaamadaad rabbi ku taqaaniin miyaa jirta ood rabbi ku garanaysaan waxay odhanayaan nacam rabbi calaamad aan ku naqaanaa jirta dadkaan rabbi sifaadkiisa aqoonu hadda dhegaysta aynaad barta sifaadka rabbi barta calaamadaan rabbi ku naqaano ayaa jirtay dheheen oon ku suganayno subxaana allah wainahu laa mala lahu aw laa matala lahu laa mila lah laysa kamilihi shay wahuwa samiicu albasiir ilaahay wax u dhigma ma laha wax u egna ma jiraan waa ka duwan yahay wax walba o dhan fayatajallaa lahum subxaanahu wa tacaala fii gayri suurati alatii yacrifuunahu ilahay wuxuu ugu muuqan doonaa suuradday ku yaqaaneen iyo sifaadkay ku yaqaaneen aanan ahayn ugu muuqan doonaa fayaquulu wuxuu odhan doonaa ana rabbukum rabbigiinnii baan ahay buu ku odhan doonaa ilaahay subxaanahu wa tacala waa la imtixaanaya soo ma arkaysa fayaquuluuna waxay leeyihiin nacuudu billaahi mink ilaahay baanu kaa hoos galnay bay leeyihiin haadaa makaanunaa xataa yaatiinaa rabbunaa halkanagaan ku sugnaanaynaa intii rabbiganagii au nooga yimaado faidaa jaa'a rabbunaa carafnaahu rabbigay hadduu noo yimaado waan aqoonaynaa sidee buu ku imaanayaa kayfiyadaa layma weydin aniga layguma kallifinin maxaa yeelay awooddayda way ka baxsan tahay markay sidaa ay yidhaahdaan fayatajallaa lahum fii suuratihi alatii ra'awhu fiiha ilaahay wuxuu ugu faydmi doonaa ugu muuqan doonaa suuraddii ay ku yaqaaneen iyo sifaadkii ay ku yaqaaneen buu ugu muuqan doonaa awala maratin daahika fayaquulu ana rabbukum marka qosolka ilaahay iyo sida uu ku muuqanaya iyo sida uu yahay iyo xagga dambe iska dhig adigu kolkaa marka uu sidaa yidhaahdo fayaquulu ana rabbukum fayaquuluuna nacam anta rabbunaa bay odhanayaan markaa adigaa rabbigayagii ah wayakhiruuna lahu sujada ilaahay bay u dhacayaan sujuud ugu dhacayaan sujuud cibaado maaha waa ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdiga markaa mid lagu takliifiye maaha markaa waayo takliifka waa soo dhaafin marxaladiisii ilaa man kaana laa yusallii fi dunya aw yusallii riyaan ruuxii markii hore aan tuka jirinin ardada korkeeda aan tuka jirin muslimka ahaa ma sujuudi kara maalinkaas ruuxii salaadiisa u tuka jiray istustusna maalinkaa ma sujuudi karo marka qofkii salaada ka tegow maanta laga bilaabo salaada ha ka tegina tuko haddaad rumaysnayd inaadan muslim ahayna ahlan wasan haddaad rumayna muslim ahayna tuko qofkii inuu muslim yaho ilaahay rumaysan yaho nabi maxamed diintiisa rumaysan yahay qiranow tuko taasaa imaan doonto wallaahi qofkii shalay u tukanaya salaada markuu dadka la joogo inuu qurxiyo markuu keligii yahana uu gebgebgebkafsiiyowna ogow rabbi inaad u tukanayso oo riyaaga aan laga aqbalaynin fainahu yuxaalu baynahu wa bayna asujuud insaankaa asagay sujuudda waa la kala hor istaagi maya baa la odhanaya dhabarkii baa noqon bir noqon taagan ilaahay markaa subxaanahu wa tacaala waa baxayaa way raacayaan rabbi bay raacayaan waxay dhaafi doonaan kaawaddii loogu talagalay oo jahannamo korkeedaas inay dhaafaan khalqigiina waa la soo kaxayn waxaa ka mida markaasi mid kufkufayaa ka mida maanta meeshu waa mugdi weeyaan oo nalkama samaysma laguma gudbi karo ilaa nuurulcibaada mugiyo nuur rabbilcaalamiin nuurulcibaada mugiyo laguma gudbi karo wax kalayto waa meesha maanta ma arkaysaa ay imaan doonaan munaafiqiintu odhanayaan naqtabis min nuurikum unduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakum macakum قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حاجة دم بكر هذه افتين كدون حاجة دم به يعني لو ما قد بكرام مركاسي إلا افتين موجي مركا النور كي صلاة إيه صوم كي إيه عبادة دي يا مركا أصاب حي مركا هالكاسي كسو قدبان
yaa loo qaybin maanta ma arkaysaa anwaartii ay meesha yimaadaan oo mugdiga ay ku sugan yihiin anwaartoodii loo qaybin qof walba nuurkiisii ikhlaaskoodii iyo camalkoodii adduunyada intii u leekaa ruux nuurkiisa oo noqdo sida qorraxda oo kaleetiyo ruux nuurkiisu noqdo sida xidig oo kale iyo ruux nuurkiisu noqdo sida faanuusta oo kaleeta iyo quwaddiisa iyo dacfigiisa intaba qof walba intuu cibaadadiisu la ekay ammaanadiiba marka la soo diriyo raximkii yaa la soo diri ammaano waa beeshay ummadda soomaaliyeed ha la ogaado ammaanadii cilmiga waa beeshay ammaanadii sidqigana waa beeshay ammaanadii xoolaha waa beeshay ammaanatulcirdi waa beeshay ammaanadii waa lagu xadgudbay laakiin xaggay istaagi doontaa qof walbuu ogow inuu ninku gabadhiisii ku gano oo maanta cirdigeedii gano oo yidhaha saas hesho xaggay ka laabato xagga ka laabatay yaad arkaysaa haddaba oo gabdho carruur haysta ay leeyihiin nimankii carruurta dhalay baa na odhanaya hooyadin suuqay gasha ilmaha naga ku odhanaya laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim war waxbaa dhici doona ammaanadaas qofka cirdigiisu waa ammaana waa xaq weeye in la ilaaliyo u baahan inaan lagu xadgudbin u baahan in la iska jiro u baahan diintu waa ammaana in la baro dadka qofka yaqaana inuu baro waa ku ammaano waa lagama maarmaan qofka la baraa inuu gutana waa ku ammaano waa lagama maarmaan sidaas ammaanadaas weeyaan cirdigii maanta ma arkaysaa waxaa imaan doonta maanta ma arkaysaa qaraabadiinimadii baa imaan doonta raximkii baa imaan doona rixim goobaa soo baxay badan kuwa abtiyaalkuu dileen baa jira kuwa maanta in abtigoo dilay baa jira kuwa qadiyey baa jira kuwa af xumeeyey baa jiro af xarar kula hadlay baa jira kuwaanan xiriirin baa jira xarigii ilaahay xiray kuwa gooyey baa jira ha ogaadeen taa inayna ku faka doonin ha ogaadeen reer hebel waay reer hebel waay reer hebel waay reer hebel ha kaa saarto waaye ilaah ha kaa dhigo riximkaa kugu daree meeshaad berita ka dhacday ha la ogaado waray ha la joogo waray ha la joogo war ha la toobad keeno war setagoyga ha la daayo war ciidda in la gelaya ha la ogaado war qof walba u riximkaa goyday soo xariiri war ka daba tag war intayna kugu qabsan meel kale ka daba tag war ka daba tag war joog qof walba joog raggi dumarba qof walba joog riximkii sidaas uu soo istaagi doonaa ammaanadii sidaas uu soo istaagi doontaa calaa janbay siraat labada dhinaca siraadkay soo istaagi doontaa ma ka gudbi doono khaa'in kama gudbi doono qof khiyaano ku dhaqaaqay kama gudbi doono khiyaanatu الdiin wa khiyaanatu اlcirdi wa khiyaanatu اlmaal wa khiyaanatu alraxim wa khiyaanatu alamaana kama gudbi doono ha ogaado walaa qaaticu raximin mid riximka gooyana kama gudbi doona ha la ogaado way ku dhegi doontaa ballanuuna ilaahay ku qaaday inaanu maanta qadinin waa iskhilaafi doonaa marka kagudbidooda israadka ka gudbaan waa isku mid ma noqon doona dadka waxay noqon doontaa marka iyadana toosnidooda intay leekayd qof walbaba qof baa ku mari doona sida biriqda oo kale u mari doona qof baa sida dabaysha u mari doona qof baa sida shimbirka u mari doona qof baa sida fardaha u mari doona qof walbaaba sida uu ku mari doona qof baa orod ku mari doona qof baa socod ku mari doona qof baa salka ku gurguuran doona qof baa maanta xabadka ku socon doona qof walbaa taagtiisuu mari doona camalkiisu intuu la ekayuu mari doonaa meeshaas waa xoog badana maantay taalla adduunyada xagga ma taalla waa xoog badana ma taalla waxaa la suri doonaa siraadka labadiisa dhinac waxaa la sudiri doonaa sida biraha hilibka la suro oo kale tahay labada dhinac ee siraadka la suri doonaa ilaahayna og yahay qadrigooda intuu leegyahay waaweynkooda intuu leegyahay ilaahay ma cid kale ogaana jirinin waxay xayiri doontaa maritaanka dadka ay xayiri doontaa qofba mar bay ku dhegaysaa wixii qofkaasi maanta ma arkaysaa siduu uga joogsaday daacaadka ilaahay iyo wixii uu ku gabood falay iyo raadaanshaha ilaahay siduu u hor istaagay iyo cubuudiyada ilaahay siduu uga fogaaday iyay ugu dhegi doonaan qof walba waxaa imaan doona mid muslimahoo nabad galay miday xagatay oo muslimaha imaan doona miday kala googoysay baa imaan doona oo birahaas kala googooyeen miday maanta naartii kula degtay dalaq ku siisay ayaa imaan doona halkaas ayay imaan doontaa nuurka munaafiqiintuna maalinkaasi waa dami doonaa siraad korkiisa ku dami doonaa dam meel xun buu uga dami doonaa iftiinku meeshii ay ugu baahi badan yihiin kolkay joogaan yo uga dami maxaa yeelay camalkuu la yimid oo iftiinka noqonayaay waa camalkii ilaahay loogu soo dhowaaday weeye maalinkaa ma haystaan kolkaa
quluubtoodii oo dhan sidaasay u dantay siday adduunyadaba quluubtooda iyo cibaadaadka rabbi uga dantay yow ilaahay nuurka uga damiyey maalinta qiyaamo subxaanahu wa tacaala naqtabis min nuurikum aayaddii iminkaan aqrinayey yaa sidaasaa ku imaan doonta irjacuu waraa'akum baa loona irjacuu waraa'akum faltamisuu nuuran suurat alxadiid sidaasaa lagu odhan doonaa ama adduunyadii u noqdo waa lagu jeesjeesi doonaa ama bal xagga dambe u noqdo oo nuur ka soo raadiya baa lagu odhanaya meesha nuurka lagu qaybiyey oo dadka hadda lagu siiyey orda nuur ka soo raadiya lagu odhan doonaa inta aanan maanta arrintaasi dhicinin baan ka fakarnay hadday qabasho leedahay mar haddaad dhimato ka bacdi waxba ma sixi kartid ma ognaha sidaa mar haddaynu dhimanno kadib inaanan waxba sixi karin laa toobadkeena noo furnayn qaraaba aan goynana aanan sixi karin salaadaan ka tagnana aanan soo celi karinin sadaqa aan ku bakiilina aanan bixin karinin waraynu ogaano oo iminkaynu iscaymi karnaa inta xayaatadu nagu jirto 50 nagu jirtay aan isasaxno sidaa way waxa ujeedo diintu waxay intifaac leedahay intaad nooshay intifaac leedahay haddaadan intay nooshaadan ku dhaqminin hadhow kuma dhaqmaysid waa lagugu abaalmarin meeshaad ka istaagtoon baa lagu marinaya mu'miniintii markay ka gudbaan siraadkii oo maanta ma arkaysaa kamana gudbayaa baa leeyahy ilaa mu'minun siraadkana kama gudbi karo ilaa ruuxaan mu'min ahayn xaqiiqiya kama gudbi karo naartaa la haraysa inta kale oo dhan naartaa la haraysa munaafiqii iyo muraa'igii iyo mujrimkii iyo kulli wixii oo dhan xaggaa la haraysa mu'min moogiye mid kaleeta kama gudbi karayo xadiisku waa sidaa weeye kolkay maanta ma arkaysaa ay ka nabad galaan ay ka aamin noqdaan inayna naartii marka gelayno siraadka ay ka gudbeen yaa halkaa lagu soo xabisi meel u dhaxaysa jannadii iyo naarta u dhaxaysa lagu xabisi markaasaa xuquuqdoodii loo kala qaadi haddana ilaa dadka mu'miniinta ahaa maanta waa la wada tukanayaa laakiin dembi baanu kala gelaynaa cirdigii baa laga gelaya xam baa la gelaya hilibkiisii baa la cunayaa maalkii dadkii baa la cunaya ammaanadii baa laga cunaya waana la tukanaya masaajidkii baa la gelaya waa la soomaya intaasoo dhani wama allahu bidallaamin lilcabiid wama allahu bidallaamin lilcabiid taleefanka balaaye dhegta inta la saarto gacanta iyo maanta iyo lisaanka iyo caqliga iyo dhegtuba ka qayb gelayaan oo maantoo dhan xanta la iska koobinayo oo aan laga daalaynin waxbaa ka dambayn doona qof walba oo laba qof intay meel isula leexato qofka hilibkiisa ay dam ka siinayaan ay cuni doonaan waxbaa ka dambayn doona aan iscafina dhammaantaya soo idin lama qumana intaynu maqlayna soo lama qumana inaynu iscafinin cafi baad iga tihiin kulligiin adinkuna i cafiya aniga insha allah intiina wax isku sheeganaysa qof haddaan dhibkaan dhibsaday hay cafiyo qofkii kelmadiga dhibsaday inuu cafiyaan xaq ugu leeyahay maxaa yeelay uma qasdin qofna inaan dhibo laakiin shaydaanku inuu qurxiyo dhici karta adinkana sidaasoo kaleeto qofka hilibkayga cunayahay uma bannaana waxaa laga yaabaa inuu leeyahay kuma maqlaya waad dhihi kartaa inuu yidhaahdo laakiin rabbulcaalamiin baa maqlaya qofkaas malaa'igtuna way maqlaysaa marka in la iscafiyaa dhaantaan u malaynaya aan iscafinna marka sidaa markay timaado halkaa qandaradaasu bayna aljannati wannaar ayaa lagu soo xabisi doonaa dhammaantood markaas ayaa loo soo qof walba loo kala qisaasayaa xuquuqdoodii iyo madaalimtoodii ayaga dhexdooda ahatay adduunyada dhexdeeda xadiidku waa sidaa weeyaan madlamadii ay kala galeen dhiiggii ay kala daadiyeen xoolihii ay kala qaateen cirdigii ay kala galeen berito halkaasaa loogu kala qisaasayaa intaan jannadiiba la teginin halkaasaa loo kala qisaasaya meeshaa way meesha camalka xasanaadka iyo sayi'aadka ee loo kala qaadan xataa idaa hudibuu markii halkaasi la kala nadiifiyo udina lahum fii dukuuli aljanna markaa qofkii ilaahay u naxariisto camal ka dhammaadowsa ilaahay naartii ku xukumin isagaa markaa xaqiisii ka gudayo ilaahay baa ka gudi subxaanahu wa tacaala haddii marka ahlu jannadii ku sugnaadaan ahlu naarkiina naartii ay ku sugnaadaan waxaa lala yimaadaa mawdkii baa lala yimaadaa naftiisii isagoo oo wan u eg buuran halkaas ayaa markaasi la istaajiyay bayna aljannati waannaar waxaana la yidhaahdaa ahluljannow bal soo fiiriya markaasay soo daalacdaan iyagoo baqayo isla armaa jannadii laydinka saaraa ahlu naarkiiyow iyagoo rajaynayo isla armaa laydinka saaraa naartii ma taqaanin midkaan baa la odhanaya haabay odhanayaanoo waa mawdkii bay odhanayaan markay sidaa yidhaahdaan dhammaantoodna way wada garan waayo qofaan soo dhadhamin mawdka ma jiro rag iyo dumarba qofaan soo dhadhamin ma jiro haada almawt fayudbaxu markaa bayna aljannati waannaar mawdkii baa la gawrici halkaa asaga naftiisa markaa bayna aljannati waannaar uma yuqaalu ya ahla aljannati khuluudun laa mawt wa ya ahla annaari khuluudun walaa mawt
ahlu jannadii waad ku waaraysaan ayadoon dhimasho jirinin ahlu naarkii naarta ku waaraysaan dhimashana ma jirta baa la yidhi laa xawla walaa quwata illaa billah halkaasoo masiirkii ku dambeeyey ahlu bani aadamkii nudfadii bilaabatay dhibicdii bilaabatay uurka hooyada ku bilaabatay halkaasay ku dambaynaysaa natiijadeedii waa halkaa weeye human development ama gaalku ha ka hadlo ama waxuu doona asagu ha sheegay intaa waa moog yahay gaalku waxa uu ka hadlayaa waa nool yahay iyo waa dhintuu ku egyahay waxa uu gaalku ka hadlayaa waa intaa weeye laakiin ilaahay nabi maxamed wuxuu kuu sheegay xaqiiqdiisii meeshuu ma'aalkiisu ahaa buu kuu sheegay inaynu maanta taa ka fakarno ayaa lagama marmaan gaayadaas inaynu ogaano ayaa lagama marmaan ah saasaa marka ilaahay u lacnaday qofka insaankaa intaa la marsii doono inkiray rabbi qutila alinsaanu ma akfara min ayi shayin khalaqa min nudfatin khalaqahu faqadara uma asabiila yasarahu uma amaatahu faaqbara uma idaa shaaa anshara waxa aan marka leeyahay kulligaiyo fuqaraan nahay runtii markii loo eego camal aan maanta haysanoon rajayhayna in jannada ku gelayno kollayba ma u jeedo runtii way afara'ayta aladii tawallaa wa acطaa qaliilan wa afdaa baan u muuqanaa dhammaantaya ninkii xoogaa yaroo camala sameeyey ee haddana gawaan raaciyey ama xan ha ku gawaan raaciyo ama dhaqan xun oo kale ha ku gawaan raaciyo dhammaantaya waanu istahiraynaa dad fiican baanu isu haysana laakiin dad fiican manhino ilaahay baa naga og cuyuubtayada subxaanahu wa tacaala yani markiina loo eego waxa na sugaya iyo sida aynu nahay iyo waxaan samaynayno waxba gacanta kuma hayno war ilaahay ma u toobad keennahay oo ma iscayminaa inta noo hartay hadda caymadaas waxaa lagu gaaranayaa qof walba oo adaa qaraarkaad gaarayso qof maanta ku daba socdoo kale ma jiro laakiin xaqiiq weeyaan nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dan annagay noogu jirtaa war qof walbow adaa is-og mucaamaladii qalluucneedoo aad ku jirtay ka har camalkii ilaahay diintiisa lagaaga reebood og tahay inaad ku jirta ka har qof walbow rag iyo dumarba ogow inaad dhimanayso oo ku fekero xagga u jeeso marka ugu horraysa oo qubuuraha bal akbar maalin walba hadday kuu suurowdo oo ilaahay qufraan iyo dembi dhaaf ha la weydiisto badan khiyaano fara badan yaad arkaysaa adduunyadii waa macaantay addunyaa xulwatun khadira in ilmaha la dhaca waa sahlantaho agoonta in la dhaca waa la sahlantaho haweenka in la dhaca waa sahlantaho qofka kaloo taagtayr inuu dhaco waa sahlantaho in la isdulmiya waa sahlantaho in la is-inkiraa waa sahlantaho in maanta ma arkaysa addunya laga daba ordo waa sahlantaho kaarar in la samaysto war maya war haddaynaan rabinin gaalka inaynu ku masiir noqonno haddaynan doonaynin hadda intay goor tahay gaalka aynu khilaafna dhaqankiisa iyo noloshiisa aynu khilaafna war waxa guryuhu u degi la'yihiin waa sidaasi aynu toobad keenno waxa ay musiibadu noogu sallidan tahana waa sidaasi aynu toobad keenno ayuha alikhwatu alakhawaat ma u malaynayo inaan mawduuca u doortay inaan idinka camal wanaagsanahay laakiin inaynu ilaahay u wada noqonno oo aan rabbigeenna subxaanahu wa tacaala gacanta isqabanno yaan mawduuca usoo doortoon rabbi isxasuusanno qofna camalkiisa jannada ku geli maayo iyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way leeyahin waxay yidhahan adigoo sidaan xataa hamiinkii oo dhan taagan oo lugihii ku barareen miyaadan jannada ku gelin camalkaaga yaa rasuula allah xataa anta yaa rasuula allah xataa walaa ana ilaa an yatagammadaniya allahu biraxmatin min wa fadlin buu nabi aniga xataa jannada camalkayga ku geli maayo ilaa ilaahay naxariista fadligiisa moogiye laakiin waa inuu qofku ilaahay baryaa si ilaahay naxariistiisa soo ugu daboolo haddaanan rabbiba baryaynin oo aanan soo cararaynin sidee baa ilaahay noogu naxariisanaya qof ilaahay naxariistiisa ka deeqtoomoo gacmaha gadaal isu saartay waa adagtaas sida ilaahay u siiyaa faammaa man maanta ma arkaysaa faammaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ساسو لي إلهي قفك إلهي ككافتومو إلهي كسبح هذا ككافتومي إلهينا وحبوسين ما سبحانه وتعالى مرك إلهي أنو عرفنا إلهي فقرائنا أنو قانو أنو كسوهرنا وحا أنو كجرنا أنكهرنا وهدي أي لا هي يعني واندو هدي وحترتويا إلهي سيداس القرآن كير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذاتك مؤمنين تايواندو وحترتاي يعني انتين الحقيقة وان مقلي وحقيقة وان مقلي لكن كما عمل فلن انت ان شاء الله يقول نقول إمن كاينو قدال أسوسها نقول
qofkii ribada ku dhaqmayo ka har qofkii khiyaano ku dhaqmayo ka har qofkii xoolo tuugaa haysto iska celi qofkii dadka xanto wax ka xalaal weydiiso cafu iyo qufraan ilaahay u soo noqo qofkii qabali ahaayo qabaliyada inaynu ku raacayno kaligaa aad qabrigaa geli doonto kaligaana lagu xaq sii doono ogow iminkay goori goortay qabiilku kuma raaci doono kumana daafici doone ilaahay hadda iska meele ilaahay subxaanahu watacaala hortiisaad keligii istaagi doontaa qof walbana camalkiisaa lagula xisaabi doona qof walbana camalkiisaa la abaal marin doona war iminka kaligaa aad taho godkaasaa kaligaa qof walba la geelin doona qofku markuu dhinto ma lahan qabiile ogow ma lahan soo ma og ma laha wallaahi ha intuu nool yahay umaa dadku isi sheegtaan laakiin mar hadduu dhinto kadib maya bis khalaas waa go'da taas soo maaha hadda intaadan teginin xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an tuuzanuu war naftiina xisaabiya intaan laydin xisaabinin ayuha alikhwatu walakhawaat waxaan u malaynayaa aad inaan idinkugu dheereeyey laakiin waxa aan ujeeddadaydu ay tahay waxa weeyaan ilaahay khaaliq ah aan ka boqno gadaal u soo noqon camalka wax taraaya oo qofkan wax u taraayana aynu wax tarno oo aynu masaajida kaalmayno masaajida marka laga hadlayo hal kelmad hooyanaan idin xasuusina laba xadiis baan idin xasuusin labada xadiis oo idin xasuusinaya waxa weeye waxaa la yidhaahdaa laba nin oo mudiir shu'uun diiniya ka ahaan jireen wasaaraddii Soomaaliya ee diinta yaa waxay ii sheegeen labaduba laba waqti oo kala gedisan iyagoon isla joogin masaajidka ugu waqtiga dheer leh ee sharqi afriqiya inuu yahay masjidka arbaca rukun la yidhahdo xamar ku yaal oo la yidhaahdo waxaa dhistay gabar awowgeed oo saxaabi ahaabaa dhistay baa la yidhahda Faadima la dhihi jiray taariikhdiisu 1000 iyo xoogaa sano ayuu dhisan yahay baa la yidhaahdaa marka gabadhaas inay ahayd maanta taabici ayaa lagu tilmaamaa mar haddii awowgeed uu saxaabi ahaa sidaas oo kaleeto ama ay taabici ahayd haddii la fiiriyo waxaan sidaas u leeyahay masaajidkaas laga dhisay 4 rukun oo 1000 iyo xoogaagaa sano dhisan ilaa yawmina hada waa lagu tukanaya qofkii dhisana maanta dadkuna magaciisa ma yaqaanin ciidoona ku milmay mar labadaa masiir oo ilaahay aan sheegnay midka khayr kale inuu geeyaan rajayhina ay galeen camalkoodii waa socdaa oo camalkaas khayrka ah u socda maalin walba ayuu ka mid yahay waa waqtiga weeyaan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa xadiidka muttafaqa ah ee soo arooray maalintii Khaybar la qabsaday iyo qaybtii uu ka helay Khaybar buu nabiga u yimid wuxuu ku yiri yaa rasuulallah Umar ibn Khattab laygu magacaawiyo xoolo gacantayda soo gala xoolihii ugu khayrka badnaa waa intaan Khaybar ka helay xageen geeya ii sheeg sidaan yeela ii sheeg in shiita xabastaha buu yiri wasabarta timaara haddaa doonto waqafou yiri ama xabski iyo waqtiga waa isku macne timaarteedana waqafou yiri oo ha laga cuno oo musaafirka iyo qofka socda iyo kulli ha ku waqafku ku yiri إمام النووي وحديث كشرحاي وحو يري إلى يومنا هذا أبو يري بيرتي أو عمر وقفي يدكي لمدها سيدي بوقف يهين بو يري طبعا وحو دنتا أساقو تضواب قول إيه لحظة يتضوبات السنة كهجري مركو إمام النووي دنتا وحو يري إلى يومنا هذا وقف جيب الله وقعنا أبو يري وحي كدن بيمن نقانا رنتي سوطا وحسيرات راعي قرن معي qaar badan oo culimada Sacuudiga waxaan ka maqlay inay leeyihiin timirtan la qaybiyo hada jeer waqtiga ka baxday laakiin ma ogi runtii timirta la qaybiyo Sacuudiga ay qaybiyaan waqtigii beeriha ahaayee ka baxday marka way og yihiin way qaybiyaan sidaas wadaad ugu yiri Sacuudiyiinta kamida laakiin sanadkeedii iyo taxqiiqeeda ma hayo runtii kale waxa kale tad ogtiin qofku hadduu dhinto camalkiisa inuu joogsanayo إلا عمل كخير كهو أسقو سميتي موجي أما شر ما قدم وأخر علمت نفس ما قدمت وأخرت هدول انتو عمل كمن آدم كواقو أبو نبي حديث كيسي صدق حديث شيء أو صدقة جارية يا ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به
marka sadaqatun jaariyadaasi waa waqtigaa weeyaan ceel ahaa iyo masaajid ahaa iyo waddo ahaa iyo duurul aytaam ahaa waxyaalaha qofka ka dambeeya oo camalkiisa markii la xiro aanan joogsanin u socdo ka mid yahay cumrigeennii waa yar yahay camalka khayrka aan samayhaynaana intaan halkaan joogno iyo kan sharta aan samaynayno hadduu shartu badnayn khayrku ma badnaan laga yaaba laakiin haddaan dhimanna aan samayno waxaan sharu nooga socono khayr nooga socda aan samayno bal inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaas badiyo ilaa laba shay midkii kordhaaya yaa khayr badane laba shay midka kordhaaya yaa khayr badan marka waxaan sidaa idinku leeyahay xadiidka idiin xasuusinaya waxa waqtiga noqdaahi maaha dadku waxaan naqaanaa annagu haddii masaajidka la dhiso kitaabka jaamaca inaan keenno iyo sajaayadda inaan keenno iyo waxyaalahaas inaan keenno dabcan waxaa la waqfaahay kuma jirto cuntada la cuno iyo waqfi ma gasho maxaa yeele ma baaqi noqoto baraafuunku ma noqdiyo rayxaanta iyo ma noqdaan waqaf maayo ma baaqi noqonayaan waxa baaqi noqonaya wax weeye cayn baaqi noqonaysa dabcan kitaabka waqf waa galaa li'annahu muddo oolaya hadduu dhintana waa baabay haddaan dib loo daabicinin sajaayaduna waxay ku egtahay inta ay shaqaynayso lagu tukanayo hadday baaba'do khalaas finish laakiin ciidda sida masaajidkaas oo kaleeto weligeed way oolaysaa bal fuqahadu waxay yidhaahdeen haddii inta lagu soo duulo meeshaas masaajidka ahayd oo baytullaahiga ahayd la dumiyo oo qolo kale ku isticmaasho wax kale laga dhiso xasanaadkii ilaahay oo ka qoro masaajidkaa ma joogsanayo walow meeshii wax kaleba qolo kaleta ha u dhacdo ha ka samaydo bal fiirsha haddaba marka masaajidka la dhisaya haddii hadda gaaladu ay dhacdo oo wax kale berri ay ka dhisato xasanaadkii niyadii qofka uu ku baxshay ilahay baa agtiisa ka siinaya ku wadaya subxaanahu wa tacaala bal ogaada taa waxay yidhahdeen haddii la gaday dhehen masaajidkaas dhulkaas la gado inkastoo laisku haysta gadidiisa oo meel muslimiintu ay ugu intifaac ron yihiin oo kaleeto laga dhiso ee masaajidkii la gaday lacagtiisii lagu dhiso masaajidkii kaleeto waqtigaasu waa intiqaal buu samaynaya masaajidkaas kaleeto gelaya halkiibuu galay bay yidhahdaan ardayga ah marka waxaan idin leeyahay ha yaraysanina wax yarood hadda bixidaahi oo wax badan kuu baaqi noqonayaa jira wax yarood bixida hadeer oo wax badan baaqi noqonayaa jirta waxaa laga yaabaa boqolaal sano yani cumriga qofka uu nool yahay ka soo qaad 60 sano 100 sano ka soo qaad laakiin 1000 sano xasanaad ka socdaa meeqa goora cumrigiisii la darbinayo socdaa inta ilaahay u keenayo ilaa yawm alqiyaama wax weyn waayo runtii marka camalka lagu bixiyo diinta xaggeeda iyo waqfiga lagu bixiyaahi muslimiinta sidaas ku soo taagna diinta islaamka ku soo faafi jirtay oo lagu bixin jiray waqtigaas taasi ku socdeen marka sidaas uu nabiga amray calayhi salaatu wasalaam in masaajida la dhiso duur kasta laga dhiso meel kasta laga dhiso hal lagu dadaalo intaasan anagu idin leeyahay qofkii aan wax ku darsan inuu ku darso qofkii yaraysto kari kara inuu badsado badso qofkii inta dan u badayo ka dhig timirtii nabiga aruurinayo qofku saabaha intuu ku soo qaado dhowr maalmood isagoo shaqaynayo dhintay intuu saabaha ku soo qaado isagoo la xishoonaya nabigu arkay xabad meel uu ku tuuray oo kale والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم بيقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة كوا صدقة المسلمين تيلبى حيان ليدية إلهي بقى يجي ليدي دون بودي ما أنت قيام مركع وحي يرد لبى حتى إلهي المل ليدية سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بيقول الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا تحقرن من المعروف ولو ترشن الشاتم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وين كفر كل دار مي تق النار ولو بشق تمرة يعني مركب قفك مسلم كهي الشيء إنه إلهي حتى وبهن إنه الجديد ويجي مساجد كاس يعمل كخير جاه السعانة يقفك أن وقدر سنين وقدر صو قفك يرايستي وبتسكر يوبتصو قفك ما أنت ماركيسا أن فهم سنين وهذا كور وفهم أو نيذا نيسو ذاتك كحشوت كود وحبكو كتري ما نيذا قلبك عقب سبحان الله إنما الأعمال بالنيات وياه إلهي نسجع بريتو قفك كعب المريني مركا أنت أصلا دردار مياه إلهي إذن كأقبله صدقاء أضلت مادين إلهي إذن كأقبله أنت أنا دعين كل بشيخ كوة رجينية أنت أصلا إذن لا يهي أنا سعفينه قلبك هل يسكع فيه إنه إلهي قلوبت يد الطاهرة وإلهي سبحانه وتعالى عفو حق يسكيم قلوبت يد طاهرة إلهي أنه بارينه إنه نطهره سبحانه وتعالى إنا نسعفينه أنه دم بالآن إلهي ماشي نقاك حي سبحانه وتعالى وبالله التوفيق جزاه الله خيرا شيخ محمد رشاد محاضرة سيقيم خلاء ونوسو جيدي
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا إن ميزانك حسنات سوغدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أننا نغدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخواني وأخواتي سؤاله آد بأفر بدنيهين لقوم سوى ذكوبي كرا وقتنا نقوم سيما إن أن سؤاله دان سوقد منه سؤالها طبعا نول بميشو كيمد علماء جوكتا علماء تلفونات واهي ستان وحيابها قاركا iyo su'aalaha sida khaaska qofka u taabanaya waxaan idinka codsanaynaa culimada inaad nin walba u la xiriiro sheekha magaaladiisa jooga jawaabteedu ay heli doontaan su'aalaha qaarkood oo ilaa maalmaha soo noqnoqonaya ilaa 2 xabo ayaanu ka soo saarnay midda koowaad waa su'aal si guud ugu saabsan arrimaha meydka iyo qaabkeeda iyo caymiska su'aalahaas dib baan u dhignay haddii ilaahay idmo sanadka dambe inay noqoto waxyaabaha culimada loo diro iyagoo faahfaahsan maxaa yeelay intaan su'aasha laga jawaabin waa in la helaa jawaanibteedii oo buuxda si aysan hadhow khalad u dhicin ama su'aashan gabadha waxay leedahay masjid ka mid ah masaajidda wadamadan ku yaala ayaan heshiis kula jirnaa 150 ba bishiina laga goostaa si hadhow in la qaado qofka meydkiisa marka maxay arintaa diintu ka qabtaa iyadoo waliba ay noo sheegeen sida walaalaha halkan degan ay cadeeyeen in haddii qofku uu dhinto wadankan waxa loo yaqaano fakadka Swedishka looga yaqaano ama niqaabada ayaa ka bixinaysa hadduu qofku cayrta ku jirana cayrda ka bixinaysa marka laakiin gabadha waxay leedahay masjid baa 150 naga qaada bil kasta si hadhow qofka meydkiisa loo qaado arinta lacagta maxay diintu ka qabtaa أولا وقبل كل شيء qofka muslimka meesha uu ku dhintay in lagu duugo iyo sharciga islaamka qaba meesha ku dhintay in lagu duugo iyo sharciga qaba islaamka اللهم إني نقطة ماشاتي مال أن لهلي من مسلمين ولوجوه إن اللي واي موجي أو قفك متيستو مقبرة الكفار يوحلا ماذا إنه متيستو موجي قفك مسلم كاهي ماشو كل إنتين لوجوه دق دق نلو دوجو وأن دب لو دق دوجو تانكيس هدي مركب قفك أسي أو يرهدو أنا جم مقبرة جالدا أما ماشى جالدا لوجوه إن اللي وجوه مرة بها اللي يقفوا جاي ميت كي جهلا يقفوا جاي هدو يرهدو ونسي أبو أرور صداه oo yiraahdo anaa meeltay dhiganay si meydkayga looga qaado dhulka gaal ee dhul muslim la iigu duugo waxaan leeyahay intaadan ku dhiman horta ka guuro ka tasho ka car intaadan dhimanin ka tasho ka guuro ka car hadaad kari weydo wixii adiga markaas lagugu qaadi lahaa ama lagugu geyn lahaa hadaad diyaarsato tiraado aniga ha la iga qaado oo meesha ha la iigu duugo عندنا كل بما هي أنا ديارسنا يقادتان كي أهلا وسهلا لعكتك ميل سكرتو ترادو أنا يقولون مايو وكفنت يدي بإيلمتو هالكاسيتا الله هلا يوجدوا أهلا وسهلا هدي ماشوا إلى مقبرة المسلمين أي لا هاي مقبرة ضد المسلمين تها الوجود يا قفكاس مركا الأمر فيه ساعة قف يوم كاري كرينين وأنا سقوا حوله وهي سن ضد كلام المسلمين تها إنه كل بوير هذا قادم ميت كي أنا نقاد كرينين تاسو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويه مركا إن لوجود وجماش لوجود وكرو الأسترو جسد كيسي الأسترو قبر جيل جاي أمبا واجبة وفي عنتها ميل قيلة قالة عذاب كود إن الوجود وجنين ولقى في يوم مقبرة كلته الوجود والنبي قلنا سيدا صدر دار ميل كلته كدوا المقبرة يهودا أنا نهينه اسمه بقيع مركو النبي قول عليه الصلاة والسلام مثلا مركو ويجابنته haddii lagu duugo maqbara muslimiin meesha ku taalo u gaar muslimiinta lagu duugo haddii adigu aad kari karto inaad lacagtaada aruursato oo meeshaad u goosatay lagu sameeyeen ahlan wa sahlan ama masaajidka inaad kula gasho contract aad kula gasho haddii aadan lacagtii aadan bixinin hadhow dama masaajidku muxuu sameeyay lacagtaadina aanay dhamayn in lagu qaado hadhow damba hadday muslimiintu leeyihiin qofkii masjid maqbara muslim uma hayno laakiin qof walba xilan iska saaraynaaho meeshii uu ku dhinteen geynina hadii leeyihiin awoodda u hayaan ahlan wa sahlan أهلا وسهلا لكن مكلف كما هانو إلهي تكليف مسود الجن سيداس كسابسا مركا حوالها مساجدك إذن كقادو كونتراكتك سيدي أقاديان يوحي وافجينيان يأدلدو ده قدال أقول نقضو ويدي وحا ترادان محاي كوسا ليسان تعرنتا أيضا وبالله التوفيق su-aashan iyadana ku saabsan ribada way soo noqnoqotay dabcan shiikhuna wuu ka hadlay ribo ma banaana iyadoo kooban ama jaamacad gal ama bangi lacag dhigo laakiin saa'ilkan wuxuu leeyahay lacag riba ah oo hore u dhigtay ma ku bixin karaa canshuurtii dawladdu ka rabtay canshuurtaani sanad walba dadka u soo diraan ee lagu yeeshay lacag riba oo u tiile ma ku bixin karaa حرام حرام كبي حدا يتانوش هذه شغلكم ملانوتا
xaaraan ku bixiyo qofkeele isagay u taallaa badayda aniga maaha laakiin waxa weeyaan qofka muslimkaahi ribada shayga la yidhaahdo inuu qaato marka horeba ayaa lagu haystaaba maxaa yeelay hadduu qaato ku intifaaco isagoo cunaya la midka laakiin hadduu yidhaahdo waxa la weydiisanana waa shay muxarama waxaan siinana waa muxaram hadduu yidhaahdo oo sidaa uga takhalluso midkoodna aan jeebkiisa soo gelin xoolo xaaraan laga qaadan xoolo xaaraan aanu cuninin qad takunu ashal insha Allah ta'ala qad takunu ashal insha Allah ta'ala ama qofka muslimka inuu ribada ku dhaqmo oo yiraahdo kadib aan sadaqaysanaha oo meel kale aan ku bixinaha masaatan aan yeela ma lama ogolo tahay qofku waa inuu uga cararaa sida uga carar dabka sida uga carar waa inuu ribada uga carar way wabillahi tawfiiq na'am jazakallahu khayran sheekh maxamed rashaad muxaadaradaasi qayim kale ee